السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلام دمان أصحابتك حرنا ماشان ميريا سبسكرايبتين وانو مهم لايكتين وانو مهم maanta waxaan idin wadaa qiso jacayl oo ka hadlaysa sida tan inaan banala soo wadaagtay team damashan media kamida waxay tiri wiil ayaan jeclaa bitri meherad ayaan joogay oo igu yimiday lambarkeygii buu iga qortay markaa waxay tiri anuu kama heli jirin bitri lambar qaladaan qoray kabacdi lambar xiran oo qaladaan qoray kabacdi uu soo wacay laba cisho kabacdi bay tiri uu ii yimiday meheradii ma joogaa bay tiri meheradii wadana igu yimiday waxa uu igu yiri walaa lambar ay qaraac aniguna daacad baan hayo daacad baan iska haabay tiri oo u dhiibay kabacdi markii ay u dhiibtay ayuu ku walaal soo kan lambarkaaga furan waa maxay lambarka kale ii qortay kabacdi lambarkii buu halkayga qoray bitri kabacdi wuu soo qaraaci jiray anuna waxa tiri meel mood jirin qofka aniga laakiin isagu uu jeclaa bitri xoog uu jeclaaday WhatsApp-kii bay iska xiriiri jireen oo aanu inta badan lama hadli jirin bitri isagu bay markaasay inaan aan walaalnahay ayaa ugu tirina nafsigiisa ugu dhacay waa maxay sidaan imaad caadi u hadashid inanka kabacdi aniguna waan iga day waxa tiri si bedel caadi u la hadlay san wada sheekaysan laba bilood kabacdi aan inanka jeclaaday baan arkay bitri isaguna jacaylku markii hore ay qabay jacaylka badan isagoo ay qalbay inta kabacdi markii hore noloshiisa ma dhaxgalin laakiin markii aan isbaranayno caadi isku jeclaan noloshiisa ayaan dhaxgalay wuxuu xasban yahay wuu sheegay aniguna waan ka booday oo ninkan xaas kale ayaa oo iskaga booday bitri halkii igu yiri waxbay fahansiyo wuxuu yiri inaan tabaan kala tagana warqadeedii bay dhiman 2 sano soo kala maqanahay waxaan ii dhashay gabadh way wata de qofka jeclaatana kama xiri karisid wata halkii ay jeclaadeen wata waxa jiray dhowr bilood kabacdi isaan isku hadlanay maalmaha kamida ayaa la soo qaraacay oo adeerkay baa ku dhintay bitri Ethiopia waan tagay inankiiba la soo hadlay waxa lagu aan Ethiopia ku maqanay bitri inankiiba la soo hadlay waar inantii aad furisay hay kale warqadeedii bay ayaa laga baahan yahay kabacdi meel fog buu joogay magaalada ka baxsan xukuur waan soo furaya may waxa lagu ilaa timaadid nadka ma furnaso wuxuu ma imanayaanu ilaa inantaan jecelahay igu tiraado tagtay ixtiraam ku qabo inanta uu jeclaaday tan ma he tan imka isla sheekaysanayaan ay jeclaadeen waata inantiiba adeerkeedba la hadlay iyadoo Ethiopia joogtay inta isla sheekaysanayaan markaas ku wiilkayga adeer ma jeceshiin oo xiriirmada ka dhaxayaha bitri sidoo jeclayna waa jeclayay bay ku tiri way la hadlo inantiiba warqadii xaafadii doonaysa la hadlo oo u tag kabacdi wala soo hadasho waxay ku tiri de orado warqadii inta soo sii kabacdi inantiiba timiday markii 7 soo maqmeed Ethiopia hargeysa timiday inankii ugu tagay meeshii markii uu inankii tagay ayaa ay inantii furaya anuu waan jecelahay anuu ninkayga bitri kamana tagay xaafadeeda ma rabaa dan markaa go'aanku hadduu xagga inanta yahay ku tiraaday fur waa rabaa warqadeedii waa la furaya laakiin hadduu tiraado waan jecelahay ninkaygii desinaba kaagama furmaso inankiina imika iyadii ma jeclo de 2 sano kasoo wareegtay iyo sanadkan isla sheekaysanay 3 sano oo inantii ma jecla inanka uu jeclaado noloshiisa la qaybsadeen waxay tiri walaasha aan weligeey jeclaan banu jeclaad inantan qisada inala wadaagtayna waxa ay leedahay gabadh wiil bay leedahay inanka gabadh dhale
wiil bay leedahay wiil yar ba dhashay waxaa jiray maalin maalmaha ka midaba jiray inankana waxaa la moodi jiray in aan isqarno dee yacni saan iskula sheekaysan jirnay saan u wada socon jirnay saan u wada faraxsanayn maalin maalmaha ka mida waxaa jiray dagaal intayna Itoobiya waxaan tegin wakir boodintahay dagaal baa habaan islaana bay jiray aniga walaashay waa la naxay habadaan bay ahayd waxaa la naxay meelaha labadii duhurnimo malaha ay jiray labadii duhurnimo ayaa la naxay kabacdi inankii aan isla sheekaysan jirnay ayaa wiilkaygii yaraa kaxeeyay waxa uu habaan islaana bay jiray aniga walaashay waa la naxay habadaan bay ahayd waxaa la naxay meelaha labadii duhurnimo malaha ay jiray labadii duhurnimo ayaa la naxay kabacdi inankii aan isla sheekaysan jirnay ayaa wiilkaygii yaraa kaxeeyay waxa uu ku yiri abti xageen taganaa hooyaan u taganaa gurigii buu kaxay isla soo socdeen xaafadoodu ma oga hooyadad ma oga walaalihid ma oga laakiin inankaas boogin inanta la xidhay dagaal galeen kabacdi waa la soo daayay labadii duhurnimo ilaa 5 meelahaas la soo daayay maalinimo xaafadu warba uma haynba kabacdi dee sidii wax ay qabaan oo kale sidii ayaa la moodi jiray inankaas qabaan kabacdi dee inantii saasa ku dhacday inankii ay isjeclaayeen ay doonayeen bay inay dee nolosha isla qabsadaan isguursadaanba ay inantii kale ku dhegtay xaasinimo waxay ka jiray anu xaaskaygii baan rabaa anu waxaan rabaa ninkayga kamana tagayo warqadna kama rabo waan rabaaba dee inankiina inantaasuu jecel yaho inantan damba kamaba leh wuxuu ku warqadan siinaya waata lagu hooyadeed baa la hada inanka hooyadii baa la hadashay inanta waxay ku tiri haddaad ilaaha gargaranaysid ilaahan kuu dhaariyay inankayga iga hadh bay ku tiri inankayga iga hadh xaafadooduna waxay la jeclaayeen inantan uu leeyahay waan furaya marka adeeradiina wuu la jeclaa aabihii wuxuu ku yiri inantan waad isku noqonaysa inanta badaysaa tiri laakiin isagu muu doonay inuu inantaa ku noqdo kabacdi wad hooyad inta la soo hadashay ku tirdileen ku dhashayna kaya hala soo hadlin dee waatayna waxay sameysay ma garanayso wada ku tiri walaalo hala soo hadlin waa ka isna ka yar carooday wata iyaduna way ka gaabsanaysay waa ka ku yiri walaal qaali aan waxaan hortaan waan ku jeclaaday adiguna waa jeceshahay ana waan ku jeclaaday ugu tirsadaa kale waan isguursanahay laakiin sidee marxaladayna soo kala dhex gashay wada ogtahay kabacdi maxay hayday waata hooyadii wali inantii la soo hadasay kule wali maad isla sheekaysataan inankii maybe ku tiri anu waxaan ku iga hadh way la hadasho waxay ku tiri walaalo daayi amaasi markuu toddobaad ay sida hadlayeen kabacdi toddobaad may markii ku tiri hay la soo hadlin ay toddobaadii caroonayay iyadoo way ka soo gaabsanaysay markaas wadan la soo hadlo wuxuu ku yiri toddobaad dhanba diga aamusnayda maxaa kugu dhacay markaas ay ku tiri anu walaal qaali wad ogtahay saan kuu jeclaa adigna saad jeclayd iyo xaaladda ina kala dhex taagan marka aan is amaasiino markaas ku yiri anu waxaan ku amaasiin lahay cishadii hore ee inankaaga aan u soo waday xagga jeelka ayaa ugu yiri abti waa ka tegin hooyaday ilaa ayay noqonaysaa anigu aabbahay baan tagayay ha ka tegin adaan kugu ogahay sidaa darteed baan kaaga hadlahay wiilkiina kuule intaasaan xasuustaa dee qisadu markaa sidaas bay ku dhammaatay dee waxaan idin leeyahay qisooyin kalena waan idiin soo wadnaa ee subscribe-ta iyo like-ta waa noo muhiim waan salaamay asxaabta damashaad media ku xiran kala soco sida heesaha barnaamijyada iyo wax walba cusub kala soco kuna xidhno